بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي با مهد اسكاله سبحانه وتعالى موقال كان walaalyaal waxaan ugu talagalay inaan kaga hadlo arin naxdin leh oo dadku ay ka argagaxayaan waliba khaasatan dadka Ilaahay iimaanka siiyay subhanahu wa ta'ala waxaan daawaday muuqaal hadaawan lahayda muuqaalka YouTube recommendation no si recommendation ku waxa weeye YouTube ama social media sideedaba waxyaalaha xumaanta ah si waliya bay u faafiyaan page-ka horena way geeyaan adigoon dalban oo raadsanin oo raadacayninna afkay ka soo galaysa muuqaalka waxa daawaday 100,000 oo qof oo Soomaaliya daawaday nin dhalinyaro ah baa wuxuu wareysanayaa gabadh sheegatay inay xumaan iyo faaxisho iyo zino ay ka ganacsato oo tijaariya ganacsiga baacuushtarkeedu uu yahay qaawanaanta iyo xumaanta iyo zinada wal ciyaadu billahi rabbil alamin ilaahay man ka magan galnay markaasa kaaga si daranbe waxa ay sheeganaysaa oo ay leedahay hadii dadku ay amaanaan iyo hadii leecay aniga wasu kaymid media-hana waxaan u soo galay social media baraha bulshada maanta waxaan ugu jiraa inuu qofku caan u noqdo iyo hal lagu sheego marka aniga waa isugu kaymid bay leedahay hadii xumaan laga sheegay iyo hadii wanaag laga sheego waa isugu kaymid subhanallah waxaan xasuustay ninkii carbeed yiri dhakiruni walaw bil anat waari sheega haday doonto lacnad ma ha noqoto lacnad bay ugu sheego oo wuxuuni hebi hadal haya yada iyo ninkaas halkaas iska shabahan wuxuuni uniga sheega subhanallah gabadha kuma raagay hadalkeeda waayo iyada ujeedadu ma aha ujeedadu waxa weeye waa dadka daawaday ayaa fariintu ay ku socotaa muuqaalka walaalyaal gabadhaas waxay sheegatay iyada afkeeda ka sheegatay oo qaratay waa qaraal marxaati uma baahna marag uma baahna shaahid uma baahna waa qaraal iyada sheegatay inay xumaanta ka shaqeyso ayada sheegatay inay faaxishada ka shaqeyso iyada sheegatay inay zinada ay lacag iyo xoolo ku hesho subhanallah ayada afkeeda ka sheegatay in ay media iyo social media u soo gashay inay maaragtay ku soo caanbaxdo dadku ay sheegaan ama hala caayo ama hala maago ama hala amaano laakiin uu in la sheego ujeedadeedii bay cadaysatay ya xishoodkeedii xayadeedii bay iibsatay nabiguna wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi idha lam tastahi fasna' ma shi'it hadaanad xishoonayn qof yahow waxa doonta samee aday ku taala adiga rabbiga bay ku taala qiyaamaha qofku marka xishoodkii xayadu ay ka dhamaato ee sharaftiisii uu waayo wuxuu doonaha sameeyo ilaahay buu la kulmaya ma bari buu la kulmi masaadan buu la kulmi goortu la kulmayo ilaahay baa og laakiin ilaahay markuu la kulmayo jawaabteedina waa inuu diyaarsadaa waxa doonaysi samee waa gootin loogu goodinayo oo banayn loo banaynayo ma aha waa loogu gootinayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wixii uu qofkaasi la hortagi lahaa waayahay ninka wareysanaya ayaa su'aal cajiib weydiiyay gabadha hadda noocaasa ayuu nin wareysanaya ninkii ayaa wuxuu leeyahay ka waran hadad faaraxyada guursato faaraxyadu waa Soomaalida looga jeeda ragga Soomaalida faarax loo bixiyay nin faaraxa hadii aad guursato bal ka waran markaasay madaxa ruuxaysa leedahay layguma oga nin faaraxa mana guursanayo adduunkana waxay ugu nacab tahay nin Soomaaliyeed ama qof muslim ay ugu nacabta maca dalika iyadoo sidaa ay tahay ay Soomaalidu daawanaysa wallahi waan la yaab war dadkii Soomaaliyeed qiiradii meeday war mee qiiradii meeday war hinaaskii mee war masayrkii mee war xaqay diintii tagtay meeday subhanallah wa maxay diyaasada inta laga dayusnimada inta laga gabdhihii Soomaaliyeed baa waxa ku hadlaya markaas 100,000 oo qof daawanaysa waxa kale oo iga aad iyo aad aan ugu murugooday muuqaalka noocaas xumaanta noocaas ka sheekanaya ayaa waxa like saaray daawo 26,000 oo qof baa saaray markaan daawanay 26,000 oo qof oo Soomaaliyeed ayaa like u saaray oo macnaheedu tahay hore u sii soco halka ka sii wad subhanallah la ilaaha illa allah jawaabtu koowaad horta waxaan siinaynaa ninka iyo gabadha waxaan leenahay gabadh yahay hadigoo sidaas ah oo xumaanta iyo noocaas ku jira adoon toobad keenin horta meher islaam kuma qabanayo ku bishaarayso ragga Soomaaliyeed ee damaca iyo hungurigu uu kaga jiro ee raba inay ama la shukaansadaan oo la haasaawaan la sheekaystaan ogsoonaada meher islaam qaban maayo gabadha subhanallah ma meherka islaamka nin muslina ayay ka xaraan tahay inay guursado iska dhaaf faaraxe nin muslim sheegta waa ka xaraan gabadha وإلهي با سبحانه وتعالى قرآن كو حرمي مانا حرمي فتوى علماء iyo wadaadada iyo dhalinyarada ducaada ka timi ba maya waxa weeye
واتي إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحيولي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قفك حمانت سمي الزنا ننكأه وحو قرسدا وناك زانية أو يدنا زنيستا ناك تزنيستانا وحي قرستا ونين زنيستي أما ننقالا انتا سبا قرسدا سبحان الله إلهي وحول الدقيس وحرم ذلك على المؤمنين مؤمنين توالغا حرمي نين مؤمنة والغا حرمي إنو قف زانية أما قبر زانية دينو قرسدو قبر مؤمنة دانا والغا حرمي إنو قرسدو نين زينيستا أو زانية وفاحشة يو حمانتا كشاقية هذا وقف كنوع عن أحيان كورم إنو كما شاقية الزينة يو حمانتا أو كلية دنبغيسي أو كلية كما شاقية طاوو حساميو زينة دي يو حمانتي markuu koowaad wuu galay waa fil dambiyeed weyn iyo kabaa'irta kamid laba wuu soo bandhigay oo banaanku keenay oo markaas uu dadka islaamka ah hortiisa ka qiranaya inuu waxa ka shaqeeyo saddex ummadii kalena waa ugu yeedhaya oo wuxuu leeyahay hablihii yaryara iyo kacaankii imika soo kacayay iyo gabdhihii yaryara waxa loogu yeedhaya la dhahayaa anigu lacag baan ka sameeyay intaasoo $1,000 baan ka sameeyaa bishiiba soo carara oo igu soo yaaca oo maaragtay sida aan yeelay oo kala yeela oo talaabadan qaaday oo kala qaada lacag baa helaysaan caan baa noqonaysaan jidhkiina maaragtay rakhiis ka dhiga oo wax qiimo la siistay iyo lacag la siista ka dhiga xasbunallahu wa ni'mal wakiil xasbunallahu wa ni'mal wakiil ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala nagu filan walaalayaal fariinta waxaan ku socotaa dadka daawada muuqaalada noocaas ee social media ka daawada iminka xumaantii way farabadatay meel walba xumaantu way ku badantay bal TikTok eeg dadka Soomaalidu TikTok si qaldan baabay u fahmeen ba subxaanallah iminka TikTok hadaad gasho Soomaali haduu ku garto page-ka hore waxa soo taagan gabadh marka waxa way dabada ruuxays hada waad gashayba saa markaad u gashay mad raadin mad search garaynin ma gelin adigu face-ka horeba waxa taagan gabadh isruuxayso oo isqaawisay oo laabteeda iyo maaragtay dabadeeda ruuxaysa subxaanallah la ilaaha illa allah war walaal ilaahay ka cabsada dadkan miyaanay ogan hortayna dhimanayaan waliba inuu malakul mawdku ugu jecel yahay caruurta yaryar iyo dhalinyarada miyaanay ogeyn subxaanallah ghafla ku jiraan ghafla waa moogani qofku markuu mooganida ku jiro ee ghaflada uu ku jiro waxa weeye subxaanallah wuxuu doonuu sameeyaa war ilaahay ka cabsada oo baraaruga oo xumaanta iyo faaxishada ummadda ku dhex faafinina oo dambiga qofku hadii uu galo oo way ka suurtagelaysaa dambi weyn iyo ku yar iyo mid weyniba waa ka suurtagelaysaa ha ku darsanina in dambiga weyn inaad ummadda u sii gudbisaan oo dadka aad tustaan oo dadka maaragtay subxaanallah aad maaragtay tidhaahdaan bal daawada waxaasan sameeyay oo aad dadka waxaad ugu yeedhaysaan aad tidhaahdaan sidaasan yeelay oo wal ciyaadu billah nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam kullu ummati mu'afa illa al-mujahiriin war ummadaydo dhan ilaahay wuu cafinayaa dadka la soo banbaxay dambiyada mooyaane wax xadiiskii nabiga saxiixaynka ku yaalay salawaatullaahi wa salaamu calayh dambigaaga ilaahay wuu dhaafayaa inta ilaahay asturnaantiisa aad ku jirtid oo aanad banaanka iskeenin oo aanad media iskeenin oo social media iskeenin ilaahay wuu ku asturayaa sida uu alla ku asturay hadaad asturnaanta ka baxdo ilaahay cadadiisa u baxday subhanahu wa ta'ala mar hadaad ilaahay cadadiisa u baxday waxa weeyaan cafiskii ilaahay iyo asturnaantii ilaahay baa diiday qofkuna haduu asturnaantii iyo cafiskii ilaahay diido waa qof khatar ku sugan weeye arinta kale muhiimka waxay tahay dadka faafinaya ee social media waxyaalaha noocaas soo gelinay aayad quraan ilaahay wuxuu ku yiri dhageyso إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كوا جعل إن فاحشة والزنا وي إن الزنا كفاف ضد كمؤمنين تأهبي جعليهم يجوا ما يفافن هذا كفافي وكسي درينه لكن وامد يسوي جعل أو ربا أو دنيا إن فاحشة يحمان تكون حفافته ومضى إسلام كأنه يكون حفافته في الذين آمنوا كوا إيمان كلاجه لي لحدود أيه رباين كفافته maxaa ilaahay ugu ballan qaaday lahum cadaabun aliim fi dunya wal aakhirah cadibaad daran ay adduunka inta nool yihiin iyo aakhira labadaba ay ku leeyihiin wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ilaahay ba og iyagu idinku sama ogin oo inagu ma garan karno dad qulubta intan dilaacino ma soo saari karno inuu kani jecel yahay xumaantu inay dadka ku dhex faaftay iyo inuu kani necab yahay ma garan karno hadii kii jeclaaday xumaantu inay faafto oo dadka ku dhex faafta sida ilaahay uu yiri adduunka intuu jooga baan horta ku ciqaabaya oo marka ilaahay ugu bishaariyo cadaab iyo ciqaab daran balkii sameeyeen ka waran ee banaanka keenayna ka waran subxaanallah la ilaaha illa kaasina uu ka sii daran yahay fi dalaalin mubin ku jira baadi cad inuu ku jiro la shaki kuma taagna
fariinta u dambaysa waxaan u dirayaa dhalinyarada iyo kacaanka iminka soo kacaya ee wiilal iyo gabdhaba leh ee da'da labadii kun wixii ka dambeeyay dhalatay kuwaas ayaa horta mustaqbalkooda la weerarayaa kuwaas baa maaragtay waa kuwa la khiyaamanayo wana kuwa la kaluumaysanayo subxaanallah kuwa waxa weeyaan maanta shabaagta loo dhigtayna waa iyaga kuwa dabada la ruxayo iyo markaa laabta la ruxayo lagu soo jiidanayo waa iyaga kuwa markaa wax way dunyada inta yar iyo lacagta yar iyo qiimaha yar marka lagu khiyaamaynayo ee dabadeedna jidhkooda banaanka keenaya waa iyaga kuwana waxaan leenahay dhageysta dadka idinka waaweyna wax weydiiya diinta ilaahayna barta subxaana wa tacaala dadka aan iminka ka sheekeynayo hadalkan maanta waa iga qoraysaan sanad ama 2 sano ka bacdi meel ay mareen waynu waayi doonaa waayo xumaantu sideedaba ma raagto raandhiisna ma leh intaasu sanadood baan anigu ku soo jiray social media 8 sano ama 9 sano uu ku soo jiray waxaan arki jirnay mar walba dad xumaan iyo waxyaalo sidaas subxaanallah ku soo caanbaxa sanad 2 sano markay socdaan baa la waayaa meel ay jaaniya cirib ay dhigeen kuwana waa iyaguna waa lamid way iska tagi doonaan waana la waayi doonaa subxaanallah laakiin dhalinyarada lagu khaldayo lagu khiyaamaynayo ee leeyahay lacag baa laga sameeyaa waxaan ama shuhro iyo caanimad ka helaysaa war ilaahay ka cabso subxaanahu wa tacaala oo ilaahay xasuuso oo qaflad ku jirta qafladda iyo mooganida ka bax oo adduunyadan waa adduunyadu wax yar oo kubin waa mataac adduunya adduunyadu waa dhaldhalaal yar weeyaane dhaldhalaalka yar hasiisanin aakhiradaada iyo ilaahay raali ahaanshihiisa ha ku bedelanin cadho alle iyo inay islaamka muslimiintu ku nacaan oo ku necbeedaan oo meeshaad martaba lacnad iyo habaar dadku ay ku miisaan ugu dambayn waxaan ugu yeedhaynaa ninka iyo gabadha waxa xumaantaa sameeyay ninka faafiye iyo gabadha iyaduna leh waxaasan anigu ka shaqeeyaa leh ilaahay ka baqo ilaahay u soo noqo haddaad islaam tahay wey ilaahay haddaad islaam tahay gabadh yahay waxa weeyaan cifadaadii iyo muxsinnimadaadii ku soo noqo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ku abuurayay adoo cafiifa buu ku abuuree jidhkaaga ha ka ganacsan oo baacmuushtar ha ka dhigin oo rabbigaa ka cabso subxaanahu wa tacaala oo isku xishood oo xayadaadii iyo xishoodkaagii qiimo yar iyo lacag yar ha siisanin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala berri inaad dhiman doonto garan maysid saa dambe inaad dhiman doonto garan maysid adduunyada maxaad kaga degi doontaa waxaad kaga tegaysaa xumaanta iyo waxyaalaha maaragtay faaxishada iyo xumaantaasaad kaga tegaysaa subxaanallah la ilaaha illa allah dadkuna waxay kugu xusi doonaan faaxisho iyo xumaan ka ku daawada iminka ka laygta kuu saara ka lacagta ku siiya wallaahi uma wallaahi markaad adduunka ka baxdo ayuu haddana habaar iyo lacnadkaasii daba tuuraya wallaahi uma wallaahi wanigaa dhaartay maalinteed adduunka ka baxdo lacnad iyo habaar buu kaasii daba tuuraya bale waxaabaan u malaynaya inaad aragtay adiga oo nool mid imika ku daawanaya oo kula socda oo markaa waxa weeyaan sacabka ku garaacaya inuu marka dambe haddana lacnad iyo habaar iyo cay uu kaasoo daba tuuro sababtu waa maxay wax kale maaha waa xumaanta iyo maaragtay dembiga weeye macsida weeye ilaahay ka baq subxaanahu wa tacaala oo gabadh Soomaaliyeed baa tahay xishood oo lacag haddaad rabto si wanaagsan u raadso oo si xalaali ku jirto u raadso qaabka noocaas ilaahay uga baq ninkana fariintan u diraya waxa weeye waryaa ilaahay ka cabso subxaanahu wa tacaala nin dhalinyaro baa tahay mustaqbal baad leedahay lacag haddaad u baahan tahay si xalaala waad u shaqaysan kartaa si wanaagsan oo asturnaan leh oo aan xumaanta inaad faafiso ahayn waad u shaqaysan kartaa ilaahay maanta kartibuu ku siiyo maskaxduu ku siiyey subxaanahu wa tacaala maskaxdan iyo caqligan ilaahay ku siiyey ha u adeegsanin inaad ilaahay diintiisa ku cayaarto oo aad ku jeesjeesto oo dad maaragtay xumaanta noocaasa oo liita maanta inaad banaanka soo dhigto ilaahay uga cabso subxaanahu wa tacaala ilaahay baana xaq og subxaanahu wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkaasi hadday hidaayo leeyihiin inuu ilaahay soo hanuuniyo innagana inaanu inagu fitnaynin ban ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala dhalinyarada yaryarna waxaan leenahay ilaahay hayna asturo ceebahayna allaha asturo subxaanahu wa tacaala wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu